mudanayaal iyo marwooyin dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda sanad guuradii labaad ee Khaatume State of Somalia waan idin salaamaya waxaan idinku salaamayaa salaanta diinta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waxaynu gudagalaynaa programkii aynu caawa ugu soo talagalay xafladda sanad guurada Khaatume State of Somalia waxaa programkeenu wuxuu ka koobnaan doonaa 3 qaybood qaybta koowaad oo noqon doonta khudbadaha ay soo jeedinayaan dadka kala duwan ee ka tirsan jaaliyada qaybteena labaad ee programkuna waxay noqon doontaa entertainmentigii xafladda loogu talagalay iyo cuntadii oo iyaduna qayb ka noqon doonta qaybta saddexaad marka intaanan u gudagelin xafladda waxaan jeclaan lahaa horta hore oo aan si fiican u furin inaan u yeedho marti sharafka iyo dadka inooga khudbeynaya khudbadda qofka koowaad oo aan rabo inaan u yeedho waa gudoomiyaha jaaliyadda Khaatume State of Ottawa Yaasiin Caynalo qofka ku xiga ee labaad waxaan jeclahay inaan u yeedho oday Cabdi Barado oo isaguna odayga jaaliyadda qofka saddexaad oo inoo khudbeyn doona waa oday Axmed Ismaaciil Shabeel inoo xigi doona isaguna Maxamed Cali Xaashi oday Maxamed Cali Xaashi welcome waxaan jeclahay inaan isagana u yeedho Maxamuud Maxamed Xasan Bare looma kalaarin caawa waxaa inoogu xigi doonaa waa community leader Weli Faarax waxaaynu caawa inaguna nasiib u yeelanay inuu xafladda inagala soo qayb galo oo uu ka mid noqdo dadka khudbadaha inoo soo jeedin doona wasiirka arrimaha bulshada ee Khaatume State of Somalia Maxamuud Diiri Cabdi Joof maroo kale waxaan jeclahay inaan u yeero representative ka socda Awdal State of Somalia Abdow Jaamac Wacays marka intaynaan u gudagelin khudbadaha maadaama aynu nahay dad muslina waxaan jeclaan lahaa inaynu ku furano aayadaha quraanka kariimka oo inoo akhrin doono Amiin Axmed Xasan Xaashi والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر والمساكين فلا تنهر ومن بنعمة ربك فحدث ما شاء الله صدق الله الكريم إلهي nagu anfaco aayadaha quraanka oo inoo akhriyay inaan ka daadayar Amiin Axmed Xasan Xaashi waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo microphone-ka Yaasiin oo isagu inoo furi doona martidana soo dhaweyn doona bad intuusan Yaasiin inoo furi waxaan jeclaan lahaa in aan idinla sheer gareeyo arrin ka dhacday 28 October 2013 magaalada Taleex oo ay ku dhinteen dad aan xaqdarro u dhintay waxaan jeclaan lahaa in aad 1 minute of silence aad ila istaagtaan si aad aayadaha quraanka aad u akhrisaan dadkaas aan u xasuusano please idinkoo raaliya waa codsi thank you Thank you very much.
waxaa caawa halkan inoogu diyaara oo qayb weyn ka qaadan doona xafladda fanaanka weyn ee caanka ah wada taqaanaan Cabdullaahi Boqol oo inaga dharjin doona muusigiisa dad badan in ay daraadiis caawa meesha u yimaadeen. waxaa kale oo inoo khudbayn doona oo khudbadda bixin doona laba gabdhood oo ayagu ka cudur daatay inay soo ag fadhiistaan ragga maadaama aynu dad muslimiin nahay. marka waa nimco maxamed cali abukar iyo ifraax maxamuud xoosh ruuraa ku magac dheer. waxaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo yaasiin si uu inoogu furo programka. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد أدعو ما سنتهاي وما سو يستاجين أرد هالكلام عن هذا البدن إلى هذا وحنا سو يستاجي إن أنا مرشد شرفته قيمها هي غايها مدن كسوق كشيء ما دشن إن أنا ندير هذا آديات أيام هتنتي أنت أمريكان كجودبو واحد بدن يدين شيء ما يو وايو ده واحد يسوون نمد و inaynu taageerno maamulkii Khaatumo State oo laba jirsaday qof walba waa ka dharagsan yahay marxaladaha uu maamulkani soo maray. marka anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Khaatumo State ee Orawa waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin inaad ka soo qayb gashaan xafladdan. waxaan caawa تعسيل لبعض أيام ودعدي تعديها سواء نين نوجري قديجي G11 محمد فارح براله أو كوجريودي أديسوا لبس عدد كهر إن إلهي نكا نحرستي شنو وكورا بيو. يا أيام وغنى حي هذا أيام الله صار شيء التلفون ولا بصدري مركب الإلهي قبلي هونوريو نكا مسكين كاي جريودي أحرستي شنو الله كورا بيو. برنامجكو سيدو وسعنا يو أحمد أيا ينود دين دونا تعسيد النكاس أيان هذا جمرو بدل مركب هذا الفرقدان لما هيو Khaatumo waa maamul iskii u istaagay oo raadinaya qarannimo Soomaaliyeed. waxaan u taagan yahay oo mar walba u taagan yahay inuu qarannimadii Soomaaliyeed meel ku hubsado kii qarin lahaa iyo kii qiran lahaaba qadarba mooye Khaatumo waa qaran. أدعو ما سنتين دمنا شرفت لي كسر بالحبة. Thank you very much. ياسين أبو ما تسيعي إمي كنا وحان جعلنا نيارو حاجة عبد برادو. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آدي آدم سلاميها شركة إنت كسوقي بشيء أنا يبغون هبل إيه مقعدون وكل شيء كل جين. سلامة الإسلام كان لكم سلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مد الله بعض نبى وحلقة شيء أنيقا أويا أيا ويلي وجوكست غيري دالي نوش محمد براله فارح آدي أيا وقلنا حي
aniga oo aad u aqaanay dadnimadiisa, soomaalinimadiisa, islaamnimadiisa, khaatumanimadiisa, anigoo aad iyo aad u aqaanay, aad iyo aad iyo aad baa u bedelmay jawgaygii aan la soo galay haddii ilaahay aad maayo xafladda. haddii aan yaro bashbashleeyo markaa dee waa yara qalbigaan ka yaro dhaawacnahaya ha layga raali noqdo. intaa waxaa ii raaca meeshatan waxaynu isugu nimi xuska micnihiisu wuxuu yahay waa xusuus. wax haddii la bilaabo marka dambe ee loo yimaado wuxuu qabtay iyo wuxuu ka xumaaday intaba waa la xusaa. xusku wuxuu ka mid yahay in la ogaado oo laga warhayo oo laga warramo wixii la garan karo. intaa markaan ka gudbo waxaan marka hore u hambalyaynayaa 11 nin ee uu ka mid ahaa marxuumkaasi ee ku fekeray khaatumo inay u baahan tahay inay istaagto. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. mahadda labaad waxaan siinayaa nimankaasi god bay galeen, way qodeen, dheeman bay ka soo saareen. dheemantii sanduuq laguma ridin, shandad laguma ridin, midna laguma ridine taray baa la qaaday. taraygaa laynoogu qaybinayo raashinka oo kale yaa la saaray. waryaa qaaday oo iib geynayaa la yidhi. markaa 15 wiil ee naftood hurayaasha ahaa, ee halgamayaasha ahaa, ee sanduuqii tuurta u ritay, ee la maray 36 meelood oo magaalo oo la degan yahay oo reerkaasi degan yahay la maray, isaga oo muuqda, dahabkii muuqda, aan xataa odhan xataa mara yar iska saara. mahad bay leeyihiin. waxaana inagala jooga wasiirka baa inagala jooga. waxaan jeclahay in la isu taago loona mahadiyo isaga. waxaan jeclahay in lagu xijiyo xaasaskii ragga ah 15 ah wixii halka ka jooga aad iyo aad oo ay haddii badanka leeyahay aad loogu mashxarado, aad inaad ugu mashxaradaan baan jeclahay. nimankaasi dahabkii ay sideen geedkii taleex bay dhigeen. meeshay la soo mareenba waa lagu afkartay. geedkii taleex bay keeneen, farahay kala baxeen. ilaa 10 kun oo qofku dadku wadhawaada baa yimi. qof walba wuxuu ka soo gaadhaba halkaasaa lagu qaybsaday. marka iyagana aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. ilaahayna waxaan ka baryayaa inay noqdaan kuwa gala xisaabta adduunka iyo xisaabta aakhiraba. waxaan kaloo iyaguna mahad u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo meel shir lagu weydiiyey
خاتم حد خدم هذا ويل خاتمه ومام الشراء عبرين كرتانا ما شفته وعن كلام هذا نقيا دور شركة كدعبي بدلان سيدا قروح البدن حراشة ودعلي إيادنا إلهي بعضه ما هذا نقيا وحان ما هذا نقيا وسيرك دول محانته لو دورتي waxaan codsanayaa codsi aan la ii odhanin adeer buu u yahay wiilka saasuu shirka u keenay qaaday tallaabo geesinimo ah oo haddaanan qaldanayn oo aanan wiilka adeerka u ahay faaninaynin aanan weli ku maqal nin dhulbahanta ah oo heer wasiir gaadhay oo halkaa ka hadla ama sidaa u hadla ama jawaabtii hadalkiisii ugu horreeyey ka bilaabo khaatimo waxaan jeclahay in faatixada loo maro waxaan jeclahay in lagu kaalmeeyo wixii wanaagsan oo qabto waxaan jeclahay wixii qaldan uu sameeyo in laga qabto sida uu isaguba dalbaday ama ballan qaaday waxay ila tahay waxaan kale oo hambalyo wanaagsan u dirayaa nimankii aanu geedkii birdaha ahaa xilka ku saaray ee aanaan ka daba tegin ee aanaan ka warhayn waxay qabaan ee aanaan haddii baydankada leeyahay ee aanu weliba badiba canaanano nimankaasna waxaan leeyahay waxay mudan yihiin mahadnaq ayay mudan yihiin waxay ila tahay anigu inaan hadalkaygii mahadnaqaa ku soo dhammeeyo ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle ilaahay waxaan ka baryayaa mahadiisa inuu inoo kordhiyo kulligeenna dembigeenna dhaafo muraadkeennana inoo sahlo khaatuma ha noolaato khaatuma ha noolaato asalaamu calaykum aad buu mahadsan yahay adeer cabdi baradho iminkana waxaan jeclahay inaan isagana u yeedho axmed ismaaciil shabeel si uu isaguna ereyadiisa u sheego mar haddii dee odayga iga horreeyey aniga hadalkaygu way iska gaaban yahay tacsina waanu ku jiraa nin aada u qaaliya oo aada u qiimo badan baa naga baxay waxa weeyaan wuxuu ka mid ahaa 6dii G11ka G6ka ahaa ee aasaasayaashii khaatumo 2011 London raggii ku abuuray buu ahaa ayuu ka mid ahaa waan xasuustaa isaga jeergareynayay shirka ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay jannadii ka waraabiyo waxaan doonaynaa inaynu faatixada u marro ayaan idinka codsanayaa in ilaahay jannadii ka waraabiyo محمد براله فارح وعاو بقريو ذا أدي سببا فاتح انت مركا كوكد بكل انت تعذيبين وكجرا انه خاتم هذا تعذيبان وكجرا اما ميلك استوى نشوفنا hase yeeshee kolley farxaddu na way dhinac socotaa wiilna waa dhashaa wiilna waa dhintaa adduunka caynkaas oo magaranaysa isbarbar socda ilaahay baana caynkaa u sameeyey inuu qofna dhinto qofna noolaado hase yeeshee waa dhaawac khaatimo gaadhay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu cawil khayr qaba noogu bedelo halkiisii talabaad waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa dadkii soo agaasimay
marxaladan ama madasha quruxda badan ee sharafta leh sida quruxda badan loo soo organize gareeyay aad baan uga mahad celinayaa dadka ka soo qayb galana aad baan uga mahad celinayaa dhammaantood yar iyo weyn gabdho iyo wiil intaa waxaa ii raaca khaatumo waa laba jirsatay laba jirkeedana tallaabooyin aada u qurux badan ama aada u qiimo badan ama guulo badan bay gaadhay khaatumo at the same time setbacksna waa ku dhaceen laakiin waxaad moodaa inay successkii ay gaadhay ama achievementskii ay gaadhay lagu ilaawi karo setbackska in sha allahu tacaala hadda sanadkan soo socda ee 2014kana qorshaha u yaalla waxa weeyaan inuu noqdo ay khaatumo noqoto mid tallaabooyin aada muhiima ku guulaysata oo gaadha waxaan intaa ka soo baxayaa khaatumo waxaan hambaliyo u diraynaa haddaanu reer khaatumo nahay doctor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland oo walaalkaya oo ku guulaystay haddii bayd mahayo madaxweynimadii uu magaranaysaay tartanka kula jiray ee puntland waxaana ilaahayna ka baryaynaa inaanu noqono laba khaatumo iyo puntland laba iskaashada oo federaalka arrimihiisa iyo dhinac walba iska kaashada inaanu noqono insha allahu tacaala waxaan intaa ku dari lahaa reer khaatumo meel ay joogaanba in ay isu taagaan shaqada khaatumo haddaynaan inagu shaqadeeda isu taagin cid ina wax inoo qabanaysaa ma jirto waxaan ka soo qaadayaa petitionna ayaanu international criminal courtka u doonaynay inaanu u diro oo dhibaatooyinkii dadkayga la gaadhsiiyey aanu gaadhsiino petitionnadii waxaanu u baahannahay waliba reer Ottawa inay saxeexaan ayaan uga baahannahay oo petitionka ay garanaysaa saxeexaan ayaan uga baahannahay marka shaqooyinkeenna haddii alla idmo aynu ku focus garayno 2014 hawlaha inoo yaalla ee khaatumo inaynu guul ka gaarno. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad buu mahadsan yahay adeer axmed ismaaciil shabeel. haddana waxaan jeclahay inaan u yeero oday qaaliya oo ka mid a odayaasha jaaliyadda Ottawa, oday maxamed cali xaashi. adeer kusoo dhawow. waxaan mahad u celinayaa walaalaha deegaanka khaatumo iyo shacabka deegaanka khaatumo iyo guud ahaan maamulkeeda iyo dadka halkan kale oo yimid ayagana oo arrintan hambalyadeeda u yimid waan soo dhaweynayaa. waana salaamantiin walaalayaal. walaalayaal waxaa weeye anigu hadalka badin maayo, hase haatee waxaan rabaa inaan idiin sheego khaatumo state waa socotay. maanta waan state maanta waan state laguma murmi karo. xaalado badan bay soo martay, kufid badan, la dagaalan badan, gudaha iyo dibadda meel kasta waa lagala dagaalamay. maalintii ugu horreysay oo la asaasayay oo John Darrell baan malaynaa inay ahayd goobtu, ayaan sheegay oo aan idhi aasaaskan la aasaasay ama dadkan ummaddan waxa ay dooratay oo ah inay midnimo yeeshaan dhibaato badan baa ka hor imaan doonta. waa lala dagaalamahayaa, waa la xasdahayaa, waa maaragtay meel kastaa laga garaacayaa.
waana dhacday welina waa socotaa laakiin shacabkeeda gaashaanka waxaa muuqata inay gaashaanka u darureen waxaa muuqata inay adkaysteen waxaa muuqata inay diideen in maaragtay maamulkooda muxuu ahaa la isku dayo in la baabiyo run ahaantii waxaa weeye khaatumo way socon doontaa wayna jiri doontaa dadkeeduna waa dadaalahayaa ninka tegay iyo nin ka orday iyo nin meel kala aaday u kufi mayso sidaan qabo ama caadada ah u kufi mayso ummadan dooratay ina khaatumo ma u kufayso nin kasta oo ka mid ah deegaanka ama maamulka khaatumo waa danjire hadday kulligood ka tagaan adiga shaqo kuma lehid state danjiradaada aho inaad u xaqiso hebel baa tegay hebel baa diiday hebel baa maaragtay halkaaga halkan hadduu rabo go ahead gal waxay ku bixinaysa male maanta intii ka tagtay khaatuma ama ka carootay waa gubteen siyaasiyan dibda ma usoo noolaan maayo wax jiro siyaasaddaa waxay tahay sideedu qofka hadduu mar qaldamo waa gubtay maca salaama dibdaba siyaasadda ugu soo noqon maayo anigu maalintii runtaa idin sheegayaa hadalkana ma rabo inaan ku dheeraado waxaa muuqato inaan ku dheeraanahay maalintii ninkii aasaasay SSC aad baan ula dhacsanaa markii xoogaa ay dhacday ninkii booskii xoogaa laga durkiyey waan ka xumaaday dad badanna waa ka xumaadeen waa arkay oo beesha ah iyo guud ahaanba wixii la socday meesha waxaan dhahnay waa xoogaa ma fiicnayn laakiin waxaan ka baqahay si kastaba ha ku dhacdee inuu bad sii galo oo gubto hadduu adkaysan lahaa oo maaragtay meeshiisi taagnaan lahaa maanta waxaan hubaa codka ugu xoog badan inuu heli lahaa wuu isgubay haddaa anugu arki lahaa waxaan dhihi lahaa war ha gubana joog war haddaad qiimaha haysataa war haddaad fiican tahay war hadda siyaasadda waa khatar haddaad meelaha qaarka aado kuwii xagga aaday meel kasta aaday way gurteen asalaam goodbye allah u naxariisto adinka waxaa weeye marka ha isu dhiibina hebel baa meel tegay hebel baa maaragtay carooday hebel baa anada daartay laakiin adiga waa inaad tiraahdaa haddaa adigu tagto adigu haddaa tahay waxba ma jiraan anigu weli waxaana askari waxaan u taaganaa dalkayga waxaan u taagaan ummadda hadda adigu khaayan noqonayso meel saabtiyo laakiin aniga weli dadkayga waan aaminsanahay ummaddaydana waan aaminsanahay waxaan u qaban karna oo u qabana horta mawqifkiina waa inuu soo ahaadaa khalkhal waa inayna gelin waayo khalkhal baa layna gelinaa hebel waa ka tegay hebel waa ka tegay khaatun waa baabaaday waa maaragtay ma jirto maca salaam waa layna khalkhalinaya marka waa inaad tiraahdaa ha tagaan haddii rabaan anigu waan joogayaa laakiin anugu waa aaminsanahay ummadada iyo dadkeeda kow dadkan beesha khaatumo dad taariikhi waa taariikh bay leeyihin waa dad taariikhda adduunka meel walba magacooda ay ku xusan yihiin dhulos waa meel walba ay ku xusan yihiin waa dad la yaqaano ma aha dad qarsoomi kara ma aha dad calool kala geli kara calool kale ma geli karaan waa dad badan oo baaxad leh oo balaaran marka kaala aniga calooshayda gal isna ma suurtoobayso baadkaa biyar waxaa weeye dad qarsoomi kara dadkan ma aha waa dad dhul balaaran waa ummad badan taariikh bay leeyihiin librarooyinkaa laga helaya meel walba aad tagto magacooda waa yaalla marka kaale aniga caloosheeda gal ma suurtooyso dhulos calool ma geli karo saan qiyaasayo aniga waxaa waaye
الدنيا مركي ومدها الجميسو متبا بقى هي متبا واحدة على لسانها متبا ماركتي مع معانك إسكرة وحوالات دي لو داديو هبان كير وحاس ومعنا ما لا إسكر دون تنا ديرها شقاء إسكرات إنا عكلة وحاوية حسن ومهزية هاي مدحوينها فدرالك حسن شيخ وخاصبني إنه خاتمه يله وانا يله أحسان إيو كما أو سمينا بريتر لصار بهن مدحوينها بونتلان مدحوينها يجا وحاوي عبد ولي كاس وكخس بيهي إنه محوها خاتم استيد إنه سياسة بونتلاند أي كسعتي إنه وحكبد الركروغو مسكحيس ديب الركروغو عبد ولي وهو شيغينا وحاوي وإنه خاتم استيد كعسية وإنه قرب سيا بونتلاند واسمتي وباهنا اعتراف iyo taariikhda gasho maqlaysan wixii hadda ka dhacay sharaf iyo adduunka marka haday gaal ka cayfadooda haday meel kale ka go'do waxay ka dhimaysaa male waa state Puntland waa jirahaya ujeedada weyn taas ah marka waxa waaye Abdi Wali haduu si waaye gacan khaatumo waxaan khasbeynaa xildhibaanada inay codka kala laabtaan hadda waa u sheegaynaa cabduligaas cabdiweli waa nin caqli badan waa nin maaragtay waxtar badan haddeer waxaan maqlahayay inuu yidhi waa isugu yeerahayaa dadka waa shirinahayaa gaar ahaan iyo guud ahaanba waan shirinahayaa dadka talaana ka soo saaraa that's good waa calaamad fiican oo wanaagga liidarnimadu ay leedahay waa dadka isugu yeero ha wada hadal siiyo guud ahaanna wixii related la ah dadkaas ama xiriir la leh ayaguna goobjoog iyo wada hadalka waxa ka gale waa liidarnimo fiican waa walaal waxa la igu yiri halkan 3 minute baad leedahay 1 minute baan marahay iga raalahaada waxaan maleynaa inaan taraarxay inaan baqalay عافية محوها خاتمها هجرتو وانا جري دونتا يا الله عبسن بقدن تاع اسكدا يضد بقبقه قالوا غورغورنا يا رغوا اركي حمر بان 10 بلود هدا جري marka يا الله بقين اخر كنقوش ادinka in ku dhameynaysa السلام عليكم How about that? Maxamed Ali Xaashi aad buu mahadsan yahay iminkana waxaan rabaa inaan u yeero Cabdo Jaamac Wacays oo ku hadlaya codka Awdal State aad iyo aad baad mahadsantihiin haddii aad iga soo qayb galiseen Khaatuma State of Somalia anagoo ku hadlaya magaca Awdal State of Somalia Awdal State waxa weeyaan mataqaanaa baryahan oo dhan ilaa magaranaysa last 3 years saddexdii sanadood u dambeysay waxay had iyo jeer garabka ku haysay mataqaanaa Khaatuma State meel kasta oo ay joogtaba ay garabka ku haysay SEC maanta midhaha ay dhalisay waad arkaysaan Khaatuma State ha noolaato aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaan barti sharafta ka soo qayb gashay Khaatuma State thank you Cabdo Jaamac aad buu mahadsan yahay waxaa la soo gaaray waqtigii wasiirka arrimaha bulshada Khaatuma State of Somalia Maxamuud Diiriye ku soo dhawo microphone السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn khiyaarta sharafta leh ee ka soo qayb gashay xafladan
سنة قرودة اللباد خاتم آدي عبداني السلامين وحنا آدي عبد السلام يا للي يردي يا خيارتي سورة جلسي إن حفلتنا نشكون لمان أنا يجنا سيجارو السلام يا خيارتا وقت جودي تايم كودي ورتاي إني كسوق يبقلان دي بدها ككليمي قالوا في النور دولو يو أجار كنا بعد ما سنتين سلام كدي خاتمه ويلي وجستي وحنو دبل دقنا سنة جورة لبعض لبعض سنة يجتي ظروف بدن وكل الدوان قريب الله حسوي صامرتي كنت وحياة بدن والله تابكروا ويدقان كصوماليا يبشرة سول سنة يعني بيكسو كل شيء يقولا والجاري وحياة بدن وبعن إن أينا تايم كذا يوقت كذا أو سحيلو بعن يو هرمرنا ويكسوف اللي هدي أنا يدبون نقطة أساس كي خاتمه ترى كي بنايا صامرتين فرنتي وحيابها هذا الشكل إنه كل ده أو إنك استوجد وحق تاي يجين كجوينا أساس كي خاتمه محمد برالة وحكم لها رجي مسكحه ذا كسر ما حتى مرصد حبنات بهاين مرلح بهاين مقابلتون هذا سد ذنين يقول مسكحه سوى كتيمي قبل هذا السور السنادي عين حالة ما أنت كشران إنه حلقة بدله وأي آيو يدنبه أي كتشدان رجو ولا يجوها كنتي إنك سيجرو حق هاي عاد ما أرتاح كل يوم وشربني إلى هنا هو نحرستو وحنقول لا وين كنتي جريدي وحق لك السيجو ما تينو كتير دون يسول سراقي عين ما دابوها ذاتي مسكحيس كسر ما حتى وقت اللي كل بيه عن خصوصا شن يتمنى نرجع نوعين يعني هذا السبب سووني وحيابها وكدولي هاي إلهي تشجعوا ناصر راعي إلهي يومان أنتي وتراه وكسر غيب علي إلهي إمك وشري بود بيسي سيده هرجمي إلهي نحرج الناس خاتمه مدة الأدير يجتي الله سلام دولنا البشرة خير أروى runtii waxaa ahayd lafdhabarta koowaad khaatum maanta ay ku faanto oo ilaa iyo iminkana maxay ahayd ay tirsanayso leedkan rabo inaad hawshiina ka wadaan siyaasadda way iska bedeleen maanta waxaynu maraynaa shirkii saddexaad inaynu isku diyaarino oo taleexa oo aynu kaga baxaynay dowladdii ku meel gaarka ahayd mid gorgortan male caalamka oo dhan baa lagu ogyahay international كلهم بقى إنه هي state أو كمل استيداد الصومالية فدرال كا ولا خاتم state of Somalia كنت واحد يقول فرحة سياسة دي مالتي لا أساسي أما مانتنا مال بمرسى وكلا دوّنت هاي مانتا وحويان سيدي أنو كبعيرة هين والدولة ضم يستران oo madaxweynaheedii leh oo baarlamaankeedii leh oo sida isteedada kala yeeno marayna waxa ballanteenu tahay runtii oo loo baahan yahay inaan focus ka saaro sidaynu arrinta uga qayb gali lahayn haday tahay maskax haday tahay maal haday tahay tartanka siyaasiga ee hadda loo tartamayo golaha madaxtinimada iyo baarlamaanka hadeen buuxinayno فرحتي موجة كنتي مالها وحا خليها سيدونكا خاتم ستيت اوف سوماليا ايادو بومبونيا حمنا سرسره او خاتمها او ايو اسكو هذا وام بحي ايو قليو لا تنسيها انا قليها لا تنسيها ولا قدره oo laga sheekeeyo leeyluhu ma kala u tajaasado horta waxa kama jiraan inaga taa aamisano ana waxaan aasaasiyaashii khaatimo dadkii suuro geliyay in la isku yimaado geedka bardaha
dadkii suuro geliyey in sool sanaag iyo cayn shacabkeedu ka dhidhiyey systemka ay ku jiraan in laga dhidhiyo oo wax laga bedelo anigu waxaan ahay dadkii nooca iminka haatanna waxaan u taaganahay musharaxiinta hadda soo sharaxaysa ee Khaatimo State hogaami doonta sida xalaasha codkiina weydiisay walow Ottawa ay balaasatay hadda oo gudoomiyihii maxay tahay Khaatimo State Ottawa waa laftiisu sharaxan yahay kula labadoona kala reebaysaano ama dee midkiiba codka siinaysa oo diri doontaan taas waa kaftan waxaan ku darsanayaa in yar oo loo baahan yahay runtii Khaatimo State shacabkeeda laftigooda cadfad in hoos loo dhigo maamulada dhinacyada laga jira wasaakan khaldamaan biskan khaldamaan loomana baahna in aynu si fiican u egno weyn waxaa horta farxada waxyaabihii ay ugu dambeeyey dowladda hadda uu madaxda ka ahaa Froole horta inay meesha ka baxday dowladda iminka maamulka qabatay Puntland inaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweynayno in madaxweynaha hadda xilka qabtay uu yahay oo wax lagu faanaa ninkii suura geliyey Khaatimo State of Somalia inuu aqoonsado isagoo Prime Minister Soomaaliya warqadiisi baanu haynaa waanu ku faanaynaa Khaatimona wuu taabacsanaa markii uu Prime Minister ka ahaa raggii mas-uuliyiinta Khaatimo Axmed Jooge baan ka mid ahaa isagaa u halgamayey aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa بيننا إذا طاير على Puntland dad isku dalabaano waxa naga wada dhaxeeya dhalasha naga dhaxaysa dhaqan baa naga dhaxeeya hiil baa naga dhaxeeya marra walba runta anagu waxaan ku faanaaba qolyahayaga hadda maamulka xil waqtigoodii la maaday waxyaabaha marmar iska maray tanadiyada iyo wax macno ay sameeyaan ma jirto anagu waxaan walaalaha Puntland waa Khaatimona waa Puntland shakanayiga ma jiro maamulka maanta Puntland laga sameeyay iyo inay istiidayaan Khaatimo iyo Puntland inay yihiin dad walaala laba maamul oo walaala dhinaca isku haya wax kasta oo danta Soomaaliyeedna ay wada sheer gareynayaan taasi waxa way wax shakaya yana isku khaldan cadow ma nihin Somaliland laftigeeda cadow ma nihin ee waxaan cadownahay siyaasadda ay wada been cadow ay musla diidana waxa weeye dad iyo dalboona ka dhaxeeya laakiin hab siyaasadeed hadii bedelaan oo nidaamkooda ay bedelaan waxa weeye waa wax maxay ahayd Soomaalnimo ay ogolaadaan naga wada dhaxayso taanku warwiir wahay imaan wultankayga ma dhamaanay ninka maqal waxaan u gudubnay calaayi xaal anigoo ixtiraamaya runtii waqtigii siyaasad dawlad buuxda oo Khaatimo aan dibadda u taagno dawladdu cidda ka imaamayso inaga leeno ka baahanayno suura galino inaga maskaxdana loo ka baahan yahay dhaqaalihii baa loo baahan yahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وزير محمود مشرح خاتم ستيت اوف سوماليا مدحوينها خاتم ستيت اوف سوماليا وشرح عن ذا فيوتشر ابو ما سيهي هادنا waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo wali farax soo dhaw mahadsan kaysa markuu ugu horeysa waxaan rabaa inaan jeclahay inaan u mahadceliyo akhyaarta iyo gabdhaha dabaaldegan quruxda badan soo qaban qaabiyay waxaan idinkaga mahadcelinayaa fursadda aad ii siiseen in aan laba kalmo ka iraahdo halkan marka xigta waxaan jeclahay inaan dadka odayaasha way garanayaan anigoo kale ah laakiin inaan dhalinta u sheego ragga dhalinyarada iyo gabdhaha dhalinyarada oo meesha fadhiya in dhulkan Khaatimo State la magac baxay uu leeyahay taariikh dahab ah ma ogtihiin in dhulkan uu yahay goobtii ugu horeysay ee inta Soomaali isu timaado ay ku go'aansato iyagoo ah Soomaali inay la dagaalamaan gumeystihii Yurub ka yimid waa meeshii ugu horeysay waa goobtii ugu horeysay ama regionkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee lagu curiyo waxa loo yaqaano
afka gaalada lagu dhaho Somali nationalism wixii halgankaas daraawiishta ka horeeyay Soomaali waa jirta ee Somali nationalism ma jirin marka hadda aan gado galo flyerka oo hiran online meelaha ku jira oo xafladan waxa ku qornaa oo astaan u ahaa Khaatuma State oo u ahaa hal ku dhig saddex kalimadood cadaalad nabad iyo midnimo marka ana waxaan aaminsanahay wax badan oo meel badan aan ka eray saddexdaas kalimadood qof kasta oo Soomaali oo siyaasi ah uu ka hadlaa dadka yaani markay Soomaalidu ka shaqo ka hadlaan waxa marka ana yiraahdaa way kala horeeyaan midnimada waxa ka horeeya nabadda nabadana waxa ka horeeya cadaalad marka maadaama uu state-kan uu laba jirsaday waxaan rabaa in aan fikradeyda ku biiriyo ah muhiimadda ay leedahay cadaaladda iyo in ay noqon karto tan u horseedi doonto state-kan iyo state-yada kale oo dhan Soomaalida iyo dawladda dadka Soomaalida oo dhan haddii cadaaladda sugaan in ay gaarayaan midnimada la raadinayay 20 sano ka badan marka maxay tahay cadaalad nimanka Greek oo laga soo gaaray dimuqraadiyadda iyo ayaa waxay lahayn jireen wax la yiraahdo city states ama magaalo walba waxay lahayd dawladeeda ayagana laga bartay stateska iyo waxyaalahaas marka magaalada Athens la yiraahdo ayaa waxa ka dhacday waxa Soomaaliya ka socdo kale oo madaxdoodii ayaa waxay noqdeen dad xunguri xun sadbursi fusqi qiyaano bay galeen tiiba marka waxay abuurtay inuu dagaal ka dhex qarxo dadkii magaalada Athens la deganaa kadibna way kala jabtay magaalada laba magaalo kala noqotay Galkacyo kala noqotay marka ay kala jabeen ayaa ragii joogay waxa kamid ah Pluto oo ahaa nin philosopher markaas wuxuu isku dayay inuu qeexo dhibaatada meesha ka timid markaas wuxuu ogaaday inay tahay cadaalad xumadii meesha ka dhacday inay asal u tahay marka wuxuu qeexay cadaaladii wuxuu yiri cadaalad maxay tahay cadaaladda waxay tahay buu yiri waa nafaqada ruuxda qofka sida ay cuntadu ay nafaqo ugu tahay jirka qofka ruuxda qofka waxa nafaqo u ah buu yiri cadaaladda markuu cadaaladda sugo oo naftiisa ku sugo cadaaladdu hadday qofka ka maqnaan tahay buu yiri ma aha qof bini aadan dhameystiran ah qofka cadaaladda ka shaqeeyo yiri ruuxdiisa ayaa nool wuxuuna leeyahay astaanta ugu sareysa ee bini aadanimada si kale haddaan u niraahno si aan u fahmno kelimada cadaalad waa inaan eegno waxa aan cadaalad ahayn maxaan cadaalad ahayn marka si loo qeexo cadaaladda waxaan ahayn cadaalad sadbursiga cadaalad ma aha gabadfalka cadaalad ma aha khiyaanada cadaalad ma aha beenta iyo iimaan darradu cadaalad ma aha cibaado la'aantu cadaalad ma aha xatooyada iyo boobka cadaalad ma aha nafti kali noolida ama selfishnimadu cadaalad ma aha xadgudubku cadaalad ma aha eexdu cadaalad ma aha adoonsigu cadaalad ma aha dhagartu cadaalad ma aha xantu cadaalad ma aha xasdigu cadaalad ma aha dhaqan xumaduna cadaalad ma aha jaahilnimaduna cadaalad ma aha isla weynaduna cadaalad ma aha anshax xumaduna cadaalad ma aha macangegnimaduna cadaalad ma aha haybsoocuna cadaalad ma aha qaswadiduna cadaalad ma aha iyo kalimaad fara badan oo wada taqaanaan oo Soomaaliya ka buuxo waxa kale oo cadaaladda lagu qeexay Quraanka Kariimka iyo yaa Ilaahay noogu sheegay iyo sunnada Nabiga Kaleey Salaatu Salaam waxaana ay inta badan Quraanka markuu qeexayo cadaalad wuxuu ka hadlaa in ay cadaaladdu tahay garsoorka xaqa ah cibaadada naxariista iyo u nuglaanshaha iyo u turidda dadka tabarta yar iyo masaakiinta sadaqada hogaaminta xaqa ku dhisan iimaanka kalsoonida iskaashiga akhlaaqda suuban soo dhaweynta dadka maslaxa ka talinta isdhegaysiga iyo kala dambeynta sinaanta xuquuqda dadka walaalaha ah gudashada waajibaadka ku saaran Allah isku dhowrka ama conscious inaad Allah ku ahaato aware u ahaato dabci wanaagga iyo waxyaalaha lamid ah iyo Quraanka iyo sunnada ku qeexday cadaalad marka waxa la inaga rabaa anaga marka hadii aan dalkeena rabnaan dhisno oo aan filayo in dadkii daraawiishta ka haray ay aad u garanayaan arrintan cadaaladda
waxaa la inaga rabaa in aynu qof iyo bulshaba ahaano kuwa ku dhaqma cadaaladda ood adigu naftaad iska bilowdo waa in cadaaladdu noqoto waajib qof walba saaran oo mas-uuliyaddiisa uu kaga soo baxo markaa kadib in aynu dooranno oo talada u dhiibanno kuwa ku sifoobay cadaalad falidda isla markaa aan ka dalbanno xuquuqdeenna inagoo ogol in aynu gudanno waajibkan na saaran markaa ayaa waxaa loo gudbi karaa nabad marka cadaaladdaas laga wada qayb qaatay la helo waxaa si iskeed ah u dhalanayso nabad waayo dadka oo dhan waxay diyaar u yihiin inay dhowrtaan oo difaacaan cadaaladdaas ay heleen marka nabad la helo ayaa nolol iyo horumar la helaa marka dadku ay usoo jeestaan inay noloshooda ay horumariyaan waxaa qasab ku noqota marka inay raadiyaan iskaashi iyo inay isballaariyaan oo ay inta ay haystaan wax kusii darsadaan taas ayaa marka waxay u horseedaa inay midnimo raadiyaan oo dadka kale midnimo ka raadiyaan midnimadaasa marka waxay ku imaanaysaa iskaashigaas uu dadku uu u baahan yahay iyo inuu isku ballaariyo u baahan yahay dhaqaalihiisa iyo ilbaxnimadiisaba ku horumariyo waana sidaas sida ummadaha horumaray ku dhaqmaan waa sida ay aniga ila tahay waa fikradeyda gabagabo waxaan eeba ka baryayaa in ummadeenna Soomaaliyeed uu u horseedo inay noqdaan kuwa cadaaladda ooga oo helo nabad iyo midnimo ogaadana midnimadu waa xoog waad mahadsantiin maasha Allah aad buu mahadsan yahay wali Faarax ereyadaas muhiimka oo aad u quruxda badan oo inoo soo jeediyay iminkana waxaan jeclahay inaan u yeero Maxamuud Maxamed Xasan Bare السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الخاتم وحمد الله همبليو سنة كان سنة كيسة برواقي بشبش بان الدين رجينية مرتدى شرفتنا هي نقلس وقيب قشي عيدا سنة قردي اللبعض وحن لا يحي ويلكم آد بعد ما هالسنتين مدنياشي قريبا وحكا هدن خاتمه jiritaankeeda sababta keentay in la asaaso aniguse waxaan jeclaan lahaa bal xoogaa inaanu ka hadalno Soomaaliya iyo arrimaha quseeya Soomaaliya oo dhan Soomaalidu waa dad gob ah naturally waa dad gob ah waa dad aad u firfircoon oo meelaha ay joogaan aad uga muuqda waxaanba ayaamahan dhaweed wararka ku maqlay wiil Soomaaliyeed oo loo magacaabay Oscarka Hollywood film la yiraahdo Captain Phillips taa waxay ku tusinaysaa in Soomaalidu hadda meelo fara badan ka muuqanayso entertainment industry business area iyo meelo fara badan Soomaalidu marka waxay ka mid yihiin dad yooga farakutiriska ah ee mustacmaradaha caabin aad u xoog badan kala kulmay of course legacy-gina waa muuqdaa qalcadihii laga dhisay Taleex Eyl Jidbaale Jiidali beel walba waxaad arkaysaa castles oo ah homegrown engineers ay dhiseen oo ay ku difaacayaan deegaankooda ayaad ku arkaysaa taa waxay ku tusinaysaa Soomaalidu inay tahay dad unique ah inkastoo dawladaha hore u maray ay noo diidaan inaanu nahay dad goob ah oo aan marna la gumaysan karin waxay hadi goor nagu tilmaamaan inaan nahay dad nacab ajnabiga marbay Soomaalidu ahayd maamul dhisan marbay lahayd maamul dhisan raadar waa awood leh marbay jirtay dawladaha darisku aanay ku dhici jirin inay ka hor yimaadaan danaha Soomaalidu maanta Soomaaliya gobonimadeeda aad bay isu dhintay dhowr iyo 20 sano ee baabaa ahayd Soomaaliya waxaa dhacday in madaxweynayaasha markay ku cusub yihiin xafiiska ay iska xaadiriyaan Addis Ababa iyo Nairobi
taasoo ku tusinaysa inuu dib u dhac ku dhacay qabkii hankii iyo gobonnimadii aan asalka u lahayn haddaan Soomaali nahay. in awooddii qarankeenu ay sii liidanayso waxaa daliil u ah heshiiskii Turkiga ku dhex maray dowladda dhexe iyo maamulka Hargeysa. heshiiskaas oo qirayay in labada dhinacba isla garteen in laga xumaado wixii gaaray dadweynihii ku noolaa waqooyi galbeed. heshiisku wuxuu egaa wax iska innocent markaad sidaa u eegto, laakiin wuxuu la imaan karaa heshiiskaas dhibaatooyin fara badan, wuxuuna furi karaa mushkilado aada u waaweyn oo khalkhal gelin kara siyaasadda Soomaalida. 5 qodob ayaan ka soo qaadanayaa dhibaatada uu heshiiskaasi leeyahay. heshiiskaasi wuxuu ku khasbay dowladda dhexe ee Xasan Sheekh Maxamuud inuu wakiil ka noqdo maamul dumay 24 sannadood ka hor, oo maanta wax hay-ad ah oo laga dhaxlay maamulkaasi uusan jirin. heshiiskaasi wuxuu oggolaaday doodii had iyo goor afka lagu hayay ee saldhigga u ahayd gooniisu taagga, waana la xumeeyey, therefore waan go-aynaa. waa doodii ayuu technically qiray heshiiskaas. wuxuu heshiiskaas xaqiray dhibaatadii soo gaartay Soomaalida kale. hadday cadaaladi jirto, wixii ka dhacay Muqdisho iyo Mudug waa wax la wada ogyahay, iyaguna xaq bay u leeyihiin inay Turkiga tagaan oo heshiis lala galo. wuxuu heshiiskaasi albaabada u furay dacwado hor leh oo lagu soo oogo shakhsiyaadkii ka haray ama ka nool maamulkii Maxamed Siyaad Barre. isla markaasna wuxuu baabi'iyey fursadihii iyo rajadii uu lahaa Maxamed Cali Samatar inuu isku difaaco. 5 heshiiskaasi wuxuu diiday inuu xuso waxyeeladii ay jabhadda SNL gaarsiisay dadweynaha shacabkii Soomaali waqooyiga Soomaaliya ku noolaa. 5taas arrimood oo aan soo sheegay oo dhibaato ah ayaa heshiiskaasu la iman karaa. anigu waxaan leeyahay Khaatumo iyo maamulada kale inay dowladda dhexe ku caawiyaan wixii khibrad ah, wixii talo ah, wax alla wixii lagu soo kordhin karo oo lagu toosin karo mustaqbalka waddanka. heshiisyadana waa waxyaabaha aadka looga fikiro oo ay dad ama lawyerisa ama aqoon u leh sida xitaa wordingka loo sameeyo heshiisyada dad khabiir ku ah baa lala tashadaa si hadhowtii aanay dhibaato uga imaan waxaana aad ku duugayso qalinka ee aada leedahay waa heshiis. Khaatumo guul baan u rajaynayaa, Soomaali inteeda kalena guul iyo gobonnimo baan u rajaynayaa. aad buu u mahadsan yahay Maxamuud Maxamed Xasan Barre. waxaa la soo gaaray doorkii dumarka hadda. waxaan jeclahay inaan u yeedho Nimco Maxamed Cali Abukar. Nimco soo dhow. السلام عليكم. لو أرينا هذاك بمش كتير وحليري واحد بدن بالهدلي بقولنا ولا السوقية مركا ورك فضيه. إن أنا وركيكم ما بدنا مركي هروا أرنت برنامج كله يدري مع وصلين مركو حير على هذا. إن وحن مهد آدي آدوين وعلينيا كديجا خاتم أطوى. برنامج كان قرحة وين هذا قرحة بدنا يسكسو دبردين iyo fursada ay nasiyeen inaan caawa halkan isugu nimaado. anigu laba qodob baan taabanaya mid waxa weeye taasida iyo arinta taleex ka dhacday midna waxa weeye mid saameysa
theme-ka uu weli faaraxna taabtay ee flyerka khaatima marka dhibaato badan baa dhacday caawana tacsidii ugu dambeysay waa sidoo adeer sheegaya anoo something ooyaya ayaa haddana waan igu sii dhuftay logta anagoo awalba tiiraanyo ay jirtay geeriye ay jirtay tacsiye ay jirtay ayaa haddana maantana mid cusub lasoo sheegay marka waxaan idin xusuusinayaa waxa naftayda anigu aan xusuusinayo wax cusub oo aan idin sheegaya caawa ma jirto markay dhibaato dhacdo oo maxay ahayd niyad jab yimaado oo murugo timaado oo ay hurdo la'aan iyo tacsiye timaado maxaan sameynaa anagu leen dadkan gaaladaynu u nimid oo kale ma nihin dad muslim aynu nahay marka waxaa jira si la isu daaweeyo dee islaamku uu noo sheegay taa un baan wax yar ka taabanaya maadaama aynan bedeli karin wixii dhacay waqtigii tegayna aynan soo celin karin waxa inoo furan uun sidii islaamku uu sheegay dhowr arrimood midda koowaad qofku waa inuu iimaan yeeshaa horta waa inaad tiraahdaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wax kasta oo dhaca qof kasta oo dhinta ama qof iskii u dhinta ha noqdo ama qof dagaal ku dhinta ha noqdo qofna waqtigiisa dhaafi maayo marka qofka muslimka waa in iimaan laga helaa taa markii laga yimaado ilaahi subxaana watacaala wuxuu qur-aankiisa ku sheegay aladiina aamanuu tatma'ina quluubuhum bidikri illaah aayaddani waxay sheegaysaa dadka muslimka xusuuska keliya ay ilaahay xusuustaan inay niyadooda ku degayso haddaad ilaahay aaminto qalbigaagu wuu ku degaya haddaad xasuusato ilaahay inuu caadil ku yahay ciddii kaa gardaran ama xaqaaga ku dhaafisa ama xoolahaaga ku dhaafisa ilaahay isagaa kaaga argoynaya maadaama aad ogtahay caalimul qayb inuu ilaahay u yahay meeshii aadan joogin adiga lagugu tashtay ama wax lagugu gaarsiiyey ilaahay baa taa qaybkeeda oo isagana xisaabteeda marsiinaya maadaama ilaahay uu risaaq yahay waxa laaliya wixii gaajo iyo dhibaato iyo abaaro iyo yimaada waa wuxuu ilaahay kugu imtixaamay haddaad u sabirtan oo kaa abaalmarinayo marka xusuusta ilaahay oo ay ugu weyn tahay arraxmaan arraxiim waa mid loo baahan yahay weliba waqtiga dhibaatadu ay timaado waxaa kaloo loo baahan yahay markaad ilaahay xusuusato waa waxyaalaha basically xasilooni sidee lagu helaa happiness sidee lagu helaa sacaado sidee lagu helaa qofku markuu murugoodo niyadiisa sidee ku dejin karaa waa taasi waa ta koowaad inaad ilaahay xusuusato weliba magacyada ilaahay haddaad xusuusato aad ku fakerto midda labaad marka waxay tahay ilaahay xusuusatay maxaa lagaaga baahan inaad tiraahdo alxamdulilah adeer 3 goor buu yiri maasha allah waa tirinay wuxuu yiri alxamdulilah 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 inaad waayo ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri waa ballan qaad la in shakartum la zinadukum waxa ballan ah haddaad ilaahay tiraahdo alxamdulilah ilaahay caafimaadka siiyay ilaahay siiyay inaan intaan maanta meel istaagno codkeena gudbisano dadka dulanka qaba dulmigooda aan ka doodno kuwa xoolaha aan haysan intaan xoolo u ururino aan u dirno iyo inay rag intaas iyo ka badaniba isu yimaadaan oo dulmiga dhulkooda ay ka dhiidhiyaan inaad ilaahay inuu ku siiyay jaaniskaas oo aad maanta u soo joogto taariikhday ka mid tahay marka waa inaad tiraahdo alxamdulilah marka arinta koowaad intaasaan kusoo gabagabaynayaa oo ah dhibaato sidee looga baxa labada arrin inaad ilaahay xusuusato iyo inaad ku qanacdo oo aad ilaahay u mahad celiso midda labaad waa bandhamay halfway topic-kii flyerka ay samaysay guddiga reer Khaatime ee Ottawa saddexdii eray halhayska oo ahaa ee weli faaraxna uu ka dhawaajiyay aad buu weli cadaalad uga hadlay midda anigu aan taabanaya waa midnimadani waxay noqotay daan dabagaale markaa tiraahdo wada soo dhawaatayba maba jirtaba meesha maba wuxuu baa si noqda marka midnimo maxay tahay marka midnimo waa danta guud waa inaan wada shaqaynaa waa inaan iskaashanaa midnimo ma aha inaan wax walba isku waafaqno ma aha inaan kulligeen isku fikrad noqono ma aha midnimo laakiin waa inaan isku ixtiraamnaa inaan kala fikrad duwanaano isku ixtiraamnaa khasab ma inaan isku wada fikrad noqono waan kala fikrad duwanaan karaa waxa weeye waan kala ra'yi duwanaan karnaa laakiin waa inaan isku ixtiraamnaa waa inaan kala dambaynaa haddii maamul la doorto ama maanta guddiga reer Ottawa oo kale mar walba abaabula Khaatimo
وإن لو احترامه قفك مامل كلا دورتي إلا لقى بدل يا مامل كا وإن لو احترامه هدي قفك مسؤولية دلساري سيد لو طلق لي وأرنتي وقصوا بحوائنا وإن سيد الصحراء اللي جو بدلا ووحيالها من نمد اللي جو جاري هذا بقى محيط هيدا أنت من نمد نوجو شرتا كل دين الإسلام كسيدة فرس وامكو خصبنا because إنما المؤمنون إخوة ماشي تعالى إنه مسلمين ما ينكوا لا لونه هذانا أهلنا ما ينكوا لا لونه مركي دتكو إسكو أهلي هنا وحصار المسؤولية دارada ما قوين كرت قفك أهل كاجا وكاجا حق بديه قف بقفك وكاجا دويه وكاجا حق بديه مركي إنا المذون دمتها بإسكان بالضيبة وينو صباحنا dadkeenu wayno baahan yihiin awoodeenu waxay la eg tahay inta midnimadeenu ay la eg tahay hadii midnimadeenu ay yar tahay awoodeenu way yar tahay hadii midnimadeenu weyn tahay awoodeenu way weyn tahay Soomaalida hore waxay ugu maahmaahday gacmo wada jir baa lagu gooyay ama far kaliya foolma dhaq marka su'aasha meesha taale kala waxay tahay hadii midnimadii saa tahay aan u baahanahay sidee baan ku midoobi karaa taas wallahi waa masahlana waa su'aal culus sidee ku midoobi karna sidee loo mideeyaa qofka faqiirka iyo qofka taajirka sidee loo mideeyaa ka qurba joogtada ah iyo ka jooga Soomaaliya sanaaga cayn sidee loo mideeyaa marka kulay cilmi aan ugu leeyahay sheegi maayo laakiin sida diintu ay sheegtay waxaad haddaad doonaysa dad inaad midayso waxaa lagu midoobaa waa in dadku ay ka biskoodaan cudurrada qalbiga cudurrada jira nafsaaniya ilaa cudurrada laga biskoodo midnimo way adkaanaysa kulli xadiisyo badan baa jira ka eegi kartaan laakiin cudurrada qalbiga ku dhaca ee midnimada baabi'iya waxa kamid ah cadhada hayso cadhoonina haddaad isu cadhootaana 3 cisho ka badan ha kala maqnaanina sababtoo ah midnimo ma jirto hadii dadka intay is wada dilaan is wada cadhoodaan kala tagaan khalaas way dhamaatay marka islaamku wuxuu yiri cadhada iska ilaaliya haday cadho dhacdana waa inaad resolve karaysaa labo xasidnimada iska daaya ha is xaasidina ha is dhabar jabinina ha is xaqirinina ha is liidina ha is xamanina ha is naanaysinina qofka naanays xun ee hadal xuliyaan la isku oranin been ha isu sheegina waxaadna marka waxa dhowr xadiis oo kale waxay ku celceliyeen waliba I think inay aayadana jirto walaalka la jeclaato waxaad naftaada la jeceshahay soo hadaad xoolo adigu jeceshahay walaalkaana la jeclo hadaad nabad jeceshahay asnagana la jeclo iyo walaashaaba dee waa iska hadal caame marka mid weyn oo maaragtay cudurrada qalbiga lagu ilaaliyana waxay tahay qofku nabiga kaleey salaam wuxuu yiri qofka muslimka maxaa lagu gartaa qofka muslimka ah waa qofka carabkiisa muslimiinta kale ay ka aamin helaan marka hadii hadalkaaga iyo propagandadaada iyo beentaada iyo waxa aad fidanayso dadkii oo dhan aad ku baabicisay dee ugu muslim ma tihid marka loo eego according to the prophet sallallahu alayhi wasallam qofka muslimka qofka kale carabkiisa uu ka magan galo that's the least aad inta ugu yaraad samayn karto markii cudurrada qalbiga laga buskoodo insha Allah sidii looga buskoon lahaana ay axaadiista iyo diinta ku taalo maxaa dhacaya xiriirka ayaa wanaagsanaanaya wada shaqaynta ayaa badanaysa waxa noqonaysa intaynu halka wada fariisano ama meel walba joogtaan ama geedkii hoostiisa ha noqoto ama quricii hebel ha noqoto ama oratorium ha noqoto ama baarlamaan ha noqoto inta la wada fariisto qof walba ra'yigiisa la dhageysto kadibna cod loo qaado loo codeeyo ama sida islaamku sheegay shuura loo sameeyo kadib marka waxa dhacaysa wax la yiraahdo win-win situation ma noqonayso wax qof kaliya oo meesha dan ku wato ama qof waliba kaliya uu leeyahay ana saacidiyo waa in la raacaa marka taas ay imanaysa markii cudurrada laga biskoodo waxa kale oo imanaysa inaynu ku dhagno xarig وإن مذوبنا إلهينا القرآن كحكير اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما لا ينوكل صعنا إسكيرة وما يسوال إنا نهشيبنا ونوحوا البوضة قيب سنة صوبتها عدد مسلمين ونهاي منكلتي كرر مركا إن حرق الله وضا قبصدو ما صدرنا إنو إنا
waxaa kaloo imanaysa in la isjeclaado dadka muslimka ah markay is ixtiraamaan hadalkooda dhageystaan qofka yar qofka weyn dadkii muxabba isu gelaysa way isjeclaanayaan waxaa kaloo imanaysa in la isku danqado nabiga calayhi salaam wuxuu yiri bini aadamku waa qofka waa inaad ugu danqataa sida jidhka oo kale haddii faryaray ku xanuunto iyo haddii wadnuhu ku xanuunayo waxaa laga yaabaa caawa dhan inaadan seexan marka ama wax weyn dhibaato weyn ha jirto ama mid yar ha jirto waa in la isu danqadaa sida nabiga calayhi salaam uu sheegay waxaan kusoo gabagabeynayaa labada arrin aan maanta ka hadlay waxaa naftayda iyo naftiinaba u dardaarmaya in ilaahay uu inaga dhigo kuwii markay dhibaato ku dhacdo ilaahay xusuusta inuu ilaahay inaga dhigo kuwo u mahadnaqa waxyaalo badan baa inaga maqan dhibaatooyin badan baa ina gaaray laakiin wax badanna waynu haysanaa iyo in ilaahay inaga dhigo kuwo midoobay oo sidee baynu ku midoobi karaa inaynu isku dayno bini aadan baynu nahay waynu khaldamaynaa inaynu isku dayno inaynu cudurrada ka midoobno inaynu wada tashano inaynu is ixtiraamno insha Allah ultimately inaan gaaro mar labaad waxaan u mahadcelinayaa guddiga iyo adeerada jazaakum Allah khayr aad bay u mahadsan tahay Nimco Maxamed Cali Abukar khudbada qiimaha iyo qaayaha leh inoo soo jeedisay waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaynu noqono kuwii ku camal fala oo ku dhaqma qodobadaas ay Nimco inoo soo jeedisay marka waxaan jeclahay inaan ugu yeero halkan Ifraax Maxamed Xoosh Ifraax Rura dhammaantiin asalaamu calaykum sidii gudoomiyuhu idiin sheegay aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalkeena aad nagala soo qaybgasheen sanad guuradii labaad ee Khaatumo State waxaa mahad gaara leh guddida soo abaabushay ee isku soo dibariday iyagana aad ayaan ugu mahadcelinayaa intaa waxaa xiga Khaatumo maanta oo dhan baa laga hadlayay Khaatumo maxay tahay Khaatumo waxa weeye bridge-ka isu haya Soomaali saddexda gobol ee ka kooban tahayna waa Sool Sanaag iyo Cayn Sool iyo Sanaag iyo Cayn macnaheedu waa Soomaali sinaan iyo cadaalad waa Soomaali sinaan iyo cadaalad qorrixi ka weyn in sacab lagu qariyo Khaatumo ka weyn in la qariyo ama uu Xasan Sheekh yiraahdo waxaan la hadlayaa Somaliland oo u ilaawo awdal maakhir iyo Khaatumo Khaatumo waxa weeye waa raggii xornimada Soomaaliyeed galiyay waa raggii u soo dagaalamay kunka iyo koogu waa isugu mid run ahaantii qisa dhab oo dhacday dhimashadu nooguma horeyso ta taleex noogu dambayn mayso noogumayna horreyn waxaa dhacday 2010kii tuulo ka mid ah tuulooyinka Khaatumo in ciidanka SNM uu duulaan ku soo qaaday nin meeshii uu ku dhashay ee hooyadii aabihii ku dhaleen joogay oo deganaa oo oday weyn oo 60 jira dagaalku muusan jirin kuma talagelin 3 xabadood ayaa qorigiisa ku jirtay wuxuu yidhi 3 xabadood waxaan ku difaacayaa magaaladeeda 3 xabadood qoriga ku jirtay buukaare iyo beebe iyo technique oo dhan ugu babaadhigay 3 xabadood ayuu ku difaacay nasiib wanaag way ka dhamaadeen 3 xabadood dibadda ayuu u soo baxay magaaladeeda dhexdiisii ayaa lagu toogtay oo uu ku dhintay ninkaasina waa aabbahay walaalkii Xariir Maxamuud Xoosh ayaa la yiraahdaa hase ahaatee waxaas wuxuu ka dhaxlay iyo geesinimada awoowayaashii oo waa taariikh looga soo sheekeeyay oo uu ku garaadsaday in magacaaga iyo sumcadaada iyo cirshigaagaba loo dhinto fariintaa waxaan ugu sii gudbiyay caruuraha yaryar ee 2 jirka ah Khaatumo meel kasta ay joogaan way yaqaanaan ee reer Khaatumo ah Soomaalidu daayadu waxay ka dhigataa fulaxantii ma mooge Khaatumo mar xaggaasi aada warnimo yahow kuwii Soomaalinimada diiday ee lahaa annagu Soomaalinimo banihin ayaa intay soo shaqo tageen dawladii dhexe yimid markaas yimaadeen jawooyinka ugu sarreeyay baa laga siiyay
waaba ninka reer khaatume ee meel qabta soomaalinimadu ogolyahay marnaba reer khaatume ma laha anagu soomaali ma nihin waxaan hoosta ka xariiqayaa oo meel walba ka muuqata 110% in khaatume israacsan tahay dacaayadda ama laga jaro 110 reer khaatume waa isku mid qof waa leexan karaa laakiin dadku ma wada xumaa shacabka iyo odayaasha rag iyo dumar way isku raacsan yihiin maamulka iyagana waanu ku qanacsannahay habi baanuna ku nahay ha jiro khaatume waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo nin martiya oo inooga yimid Toronto oo ah gudoomiyaha jaaliyadda USP America Professor Ahmed Daahir Cumar inaan siiyo 2 kelmadood oo ah baraarujin Professor Ahmed Daahir Cumar haddii aad maqlayso maqalkooda kusoo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا أنت كذب كل كوجور سوحنا ما نقلنا إلهي نابوري إنه نصنعي وقت كنا نعاود لولو إنه نصورت جدينا ما شكو كلنا ما دام عاود هاي هبين حفلات هبين فرحات سنة جوري خاتمه كل هذا البلد وبانا وملاينيا هذا ساعته وحلا ورتا خاتمه النور خاتمه النور gobolada waqooyi oo dhan gobolkan waan ka soo jeedo kulay awdal state baan ka soo jeedaa waxaan fariin iyo kulay raayay ka sida madaxweynaha cusub ee awdal state Professor Abdulsamad Ibrahim Nagi رئيس البرلمان أودل ستيت مدن المهدي موسيسا بعض كل فريق بعد الجزيرة سلام وأنا واحد نقدر حلو كل فرحة خاتمة ووضلنا تاودل وين وضلنا كل واحد نقدر حيا وحياة كلام صومالي ذاك نقدر حينين وكمية هاي إسجعيل ضد جعيل صومالي جعيل يندل جعيل بيتبوه نقدر marka marmar waxaan isweydiiyaa Soomaalinimada ma idin kuumbaale mise dhulka dhacdeen oo dadkan aad ka boogteen waayo maxaa naga lagu dhijiyo Soomaali jacayl waana sharaf dheernahay ummadda Soomaaliyeed ee kale mar baana lagu talaabsan doonaa hadafkeena Soomaali jacaylka laguna raaci doonaa reer Khaatumo waxaan u rajaynayaa barwaaqo iyo rayn iyo sanadka waqtigiisa inoo laas caanood ku damaalshaadna dhammaanteena waxaan lagu dardaarayaa inaynu fashilino kala qoqobka ummadda Soomaaliyeed iyo nin jeclaysiga iyo qabiiliysiga iyo Soomaali duunta madaxweynaha Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa Soomaalinimada annaga keenay raflabarkii ummadda Soomaaliyeedna waa annaga waxaan leenahay yeyna rugoobin arrinkii Calimaad iyo Cumar Carta Qaalib ku hadleen ahaa ummadda Soomaaliyeed badna SNM ay isku jirto badna USC tiibaad wadaan baan u malaynayaa muuqata marka idinka sayeelay waxaan idinka yeeli doonaa ummadda sureer waqooyiga dhulkooga iyaga iskale qof walbana meeshuu leeyahay isaga iskale Soomaalinimadu way naga dhaxaysaa waxaan kala leenahay waa jira nin walba meeshu ku dhashay isaga iskale taladiisa isaga iskale waxaan inoo ballana inay waqooyi ummad Soomaaliyeed noqoto dhamaanteen insha Allah ta'ala farxad Soomaaliyeed oo qurux badan inaan ku xiidno calanka Soomaaliyeedna inuu xisigiisa iyo jarabtiisa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Professor inkastoo soo daahday laakiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa kugu mahadcelinayaa inaad all the way Toronto nooga timid oo aad nagala soo qayb gashay xafladda Khaatume State aad baan kugu mahadinayaa thank you very much hadda waxa la soo gaaray ninkii Cabdullaahi Boqol baa wuxuu leeyahay saacado baa meesha fadhiya dadku raaxeeyo marka wuxuu inoo qaadayaa koow heestii Soomaaliya toosoy ka bacdina isaga ku wareegaya Cabdullaahi Boqol soo dhawow
Somali toso isku tiirsadae hadbakiina taagdarane taageero weligiine waxaa la ooyayaa nadoiga qubanaysa kabon diraaminodirayo adoonsaganaye Somali toso isku tiirsanaye hadbakiina taagdarane taageera weligiine. Thank you. haddana waxaan jeclahay inaan ku xijiyo hees loogu talagalay barnaamijka caawa aan u joogno waa Khartoum State heestii loogu talagalay iyaga oo maanta loo sameeyay idinka oo aad u mahadsan ciyaartu waa inoo furan tahay. Thank you very much.
Oh,